وما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورالكي مولد ومهد سنية هاي كن يكو جير نين aan isla shaqayn jirno halkan joogan wuxuu igu yiri maadaama abu koob tihiin khudbada naga soo koob marka hadal badan insha Allah ma jeedin doono waxaan marka hore jeclaan lahaa inaan dhamaantiin idin mahad celiyo talaabo kasta oo aad halkan u soo qaadeen ilaahay ajir iyo xasanaad ha idinka siiyo waxaan maqli jiray siyaasadda Soomaaliya faanda taqaane xildhibaan hebel uu codeeyay caawa waxaan oran lahaa London way codeysay buukoob inta aanan London lagu dahafurin wuxuu ahaa socod barad haddana waxaan dareemayaa inuu yahay mid durduro iyo orod diyaar u ah fariinta London ay dirtay waxaan hubaa inay gaari doonto gees ilaa iyo ka gees caalamka Minnesota Jigjiga Hargeysa Muqdisho Kismaayo iyo Garowe waxaan rabaa inaan dhowr wax ka taabto waxyaabaha nashidaalinaya ee maalin walba nagu sii dhiirigelinaya inaan buukoob sii wadno ayaamihii ugu horeysay oo bilowga ahaa odayba wuxuu naga soo wacay magaalada Johannesburg wuxuu yiri xaloo dhan waxaan ku dhafray buukoob waxaan jeclaan lahaa in wiilkayga oo jooga magaalada Muqdisho aan u soo daayo EVC ma lagu goosan karaa maalintaas ayaan buukoob EVC ku darnay wiilkiisa markii uu jarayna toddobaad kadib uu soo wacay wuxuu noo sheegay in xaaskiisana goosatay sidoo kale waxaan naga soo wacay magaalada Gaarisa nin macallin iskuul ah oo wuxuu arkay qof abka ku isticmaalaya bilaash abka intaan la update gareynin kii hore code-ka wax ka khaldanaayeen qofka hadduu farsamo yaqaan yahay Soomaalida sidee ugu badan tahay uu isticmaali karay si bilaash uu ku isticmaali karay marka wuxuu arkay qof isticmaalaya oo saaxiibkiisa uu la dagaalay qir markii ay ka gaartayna waxay markii dambe isku afgarteen in ninkii saaxiibka ahaa uu abkii lacagta subscription-ka iska bixiyo markuu soo wacay ninka Gaarisa joogana wuxuu yiri abkan duruus badan ayaan ka akhristaa mana rabo in dad badan ay bilaash ku isticmaalaan hadii ay sidaas dhacdana waxa laga yaabaa inaad iska joojisaan shaqada oo abka la waayo waxaan noo soo baxday buukoob inaysan ahayn ab kaliya ee ay tahay mid ay dadka Soomaaliyeed wada ilaashanayaan mid ay dadka Soomaaliyeed wada leeyihiin Malaysia wiil jooga isaga nala soo xiriiray wuxuu inoo sheegay in telefoonkiisa uu buukoob ka baxay maadaama uu telefoon kale iibsaday wuxuu yiri torogta Facebook iyo TikTok ayaan uga nasan jiray fadlan ii soo celiya abkaygi kaliya ab maaha waa meel lagu nasto oo wax lagu xusuusto oo af Soomaaliga lagu barto shalay gabar joogta Columbus oo abka iibsatay waxay tiri buugta carruurta goorma la soo gelinaya waxaan u sheegnay in dhawaan la soo gelin doono oo aanu doonayno qof kasta oo qoyska kamid ah cunug yar aabbo iyo hooyo iyo dhalinyaraba inay buukoob ka heli karaan waxyaabo ay akhrisan karaan runtii waxaan hubaa dad badan oo aniga aan la shaqeeyay oo aan islaha afka iyo aad ugu wanaagsan inaan maalmahan ogaaday inay jiraan dhalinyaro yar yar oo ka caaboon oo ka curin badan oo ka aqoon badan dhanka afka oo jecel afka laakiin aanan shaqooyin haysan buukoob kaliya ab maahana shaqo ayay u abuuraysaa dhalinyarada aqoonta leh marka laga tago fiiga aan ku bixino serverka lacagta aan developmentiga ku bixino iyo lacagta summary-ga aan ku bixino oo mararka qaarkood volunteer hodad aqoonyahan Soomaaliyeed oo buugta akhriya ay buugga soo summarize gareeyaan buug kasta oo buukoob ku jira wuxuu ku kacaa $20
$20 ee qofka buukoob akhrista ama dhagaysta uu sanadkii bixiyo macnaheedu markii 10,000 oo qof oo subscription markaan helno macnaheedu waxay ka dhigantaa inaan 10,000 oo buug soo gelin doono abkaas buukoob haddii ay jirtana sababtay u jirto waa adinka haddii ay jabtana sababtay u jabtay waa adinka malihin shirkad jeeb weyn oo naga dambaysa wiilasha yaryar iyo annagoo maamulna oo haghagna ayuu abkaasi ku socdaa rajo waxaanu ka leenahay inuu noqdo ab dadka afkooda sii dhimanaya dib u soo nooleeya caalamka waxaa xaqiiqaha caalamka waxaa la yiraahdaa toddobaad kasta luqad ayaa dhimata waa toddobaad kasta luqad ayaa dhimata caalamka siyaabaha luqadaha loo ilaaliyo oo inay dhintaan looga ilaaliyana waa in la duubo waa in wax lagu qoro waa in jiilka yaryar ay ku hadlaan ee luqadii jeclaadaan laakiin markii luqadii laga waayo erayo badan oo loo baahday markii la isticmaali waayo markii meel ay ku duuban tahay la waayo markii ay hadal suuqi kaliya noqoto waxay raacaysaa kuwa godka galaya waxaan isku dayaynaa inaan taa ka ilaalino inta aan awoodno waxaan intaa ku dari lahaa Dr. Nuur oo halkaa fadhiya oo aanu ka sheekaysanay markii aan kow la hadlay aan ka sheekaysanay bal inuu buuggiisa buukoob ku soo dari karo waxay su'aashaas ka mid tahay su'aalo markasta la weydiiyo oo la yidhaahdo buugga iyo buukoob maxay ku kala duwan yihiin annaga waxaan idhaahnaa buukoob waa biyo moysaxo ah caafi lasoo kalingareeyey lasoo sajalaateeyey oo naftana lagu ceshto laakiin buugga caadiga ah waa ceel reer laga waraabiyo beero reerna looga dhaamiyo beerana laga waraabiyo sidaas ayay u kala duwan yihiin qofkii aanan awood u helin in uu cabo biyo moysaxo oo u diyaarsan oo qabow waxaan filayaa inaanu ceelkan u socon buukoob wuxuu dhiiro gelinayaa akhriska wuxuu dhiiro gelinayaa aqoonta wuxuu dhiiro gelinayaa dadka Soomaaliyeed inay wacyigoodu isku soo dhawaadaan dad badan oo aqoonyahan ah ku faana inay buugaag kumanyaal akhriyeen dadka caadiga ah rabnaa inay buugaag kumanyaal la akhriyaan markale aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin munaasabadan aad ka soo qayb gasheen ilaahay ajri xasanaad idinka siiyo tallaabo kasta aad u soo qaadeen qof ayaan idinku mahad celinayaa guri ayaan idinku mahad celinayaa laabta ayaan idinkaga mahad celinayaa waxaan rajaynayaa inaad buukoob nala qaadaan inaad nala geysaan meel aanan annaga maanta ku tashanayn inuu gaari doono waa mahadsantihiin la soo deg abka buukoob si aad u dhagaysato ama u akhrisato nuxurka buugta ugu caansan caalamka kororso aqoon goor kasta iyo